topic موضوع about كسابسن farmers beeraha waa mowduuc ku saabsan beeraha ayaynu maanta casharkeena ku baran doonaa. What is about the topic waa ereyada ku saabsan mowduuceena. Ereyadan marka waxa weeye waa ereyada mowduuca gudaha uga jira ayaa waxaan sameeyay erey walba iyo macnihiisa oo Soomaali ayaan isku hor qoray. Marka qaybta dambe ayaan soo dhigayaa bal marka hore aynu casharkeena dhameystirano. Farmers beeralaydu are very vital in the country's economic. Waxay aad iyo aad muhiim ugu yihiin dhaqaalaha wadanka. Farmers are very vital. Beeralaydu waa kuwa aad iyo aad muhiim ugu ah. Yani ereyga vital waa muhiim, hadda muhiim ayuu taagan yahay. In the country's economic, dhaqaalaha wadanka. Every country wadan waliba. Every country wadan waliba has something wuxuu leeyahay wax buu leeyahay which waxaasoo depends on its money making, waxaas oo ku tiirsan lacag sameynta uu wadankaasi sameynayo. Yani wadanka waxaa laga yaabaa sources badan ama ilo fara badan inuu leeyahay. Haddaba ilahaasi ay ka mid tahay farmers ka ama beeralayda ama beerta. Haddaba mowduucan farmers ka ah hadda waxaynu ka hadlaynaa isha beeraha ama beeralayda ayaynu ka hadlaynaa. Haddaba every country marka wadan waliba has something wuxuu leeyahay wax which kaasoo depends on uu ku tiirsan yahay it is money making, lacag sameyntiisa ama lacagta uu sameynayo. maaha lacagta wadanka uu leeyahay lagama hadlayo laakiin waxa laga hadlayaa wadanka ilaha ama meelaha dakhliga uu ka sameeyo. wadamada qaar baa xagga beeraha, xagga badda kalluumeysiga, xagga maxaan ku yiraahdaa shidaalka ila fara badan wax ka sameeya. Marka therefore sida darteed it's very better aad iyo aad ay u wanaagsan tahay for us annaga aad iyo aad ay noogu wanaagsan tahay to harvest inaynu beerno ama beerano. Harvest waa beerid and produce iyo aan soo saaranaba the minerals macdanaha ku jira in our countries wadankeena gudihiisa. Instead of halka yani bedelkeeda halka bedelkeeda depending on aan ku tiirsanaan lahayn foreign food cuno inooga timaada xagga iyo dibadda ama ajaanibta wadamada kale. Foreign waxaa la yiraahdaa wax ajnabi ama wax dalka banaankiisa ah. There is no country marka ma jiro wadan ma jiro which kaasoo depends on ku tiirsan other countries economy, wadan kale dhaqaalihiisa. wadanna ma jiro ama wadan ma jiro ka uu ku tiirsan wadan kale dhaqaalihiisa. haddii uu jirana ogow wadankaasi waxaa haysta nooc ma gumaysigaas oo ah in wadankaasi uu la tusi waayay ama uu laga indhasaabay ama uu arki waayay maxaan ku yiraahdaa ilaha badan ee wadankaasi Ilaahay ku manaystay. So marka there is no country ma jiro wadan ma jiro which kaasoo depends on ku tiirsan other countries economy, wadan kale dhaqaalihiisa. So sida darteed when we are Somalis haddaynu lahay goorta we are annaga Somalis aynu Soomaali nahay. marka aynu annaga Soomaali nahay we have waxaynu haysanaa ama aynu leenahay fallow country. ereyga fallow hadda follow maahan waa fallowgan waxa weeye waa dhul beereed weeye. So wadan dhul beereed leh ayaynu haysanaa which kaasoo needs u baahan. dhul beereedka hadda wuxuu u baahan yahay to cultivate buu u baahan yahay si loo beero. But laakiin if haddii we wait aynu sugno aid gargaar haddaynu sugno
ayaynu ka sugaynaa from donors dadka donorska loo yaqaan. Donorsku waxa weeye waa dadka deeq bixiyaasha ama NGO-yada hay'adaha ee caalamiga. Donorsku waa weeye kuwa aynu aragno markii aynu isnraano xagga iyo beeraha dadku ay u kacaan dadka beeraleyda wadanka lagu soo daabulayo maxaan ku yiraahdaa deeqo galay waliba wax iska baalkay ah oo dhacay ama wax muddo meel ku xareysnaa iyadoo taasi loo gal leeyahay in dakhligii wadanka ama ishii wadanka dhanka beeraha ah dadkii beeraleyda ahaa laga hor joogsado iyadoo taasina ay ku tahay wadankii curyaamin. Waa tahay if we wait haddii aynu sugno aid gargaar from drones aynu ka sugno dadka deeq bixiyaasha, it won't feel taasi ma buuxin doonto. It will not way macna won't hadaa maqshid waa in short way oo will not loo sameeyay loo qoray marka it will not feel taasi ma buuxin doonto our hungry baahideenna taasi baahideennan ma buuxin doonto. soo sidaa darteed I am warning Somalis anu Soomaalida waan u digayaa. erag warning waa digniin. I am warning Somalis anu Soomaalida waan u digayaa wherever they are meel waliba oo ay ku sugan yihiin ama ay joogaanba. waxaan uga digayaa marka oo aan ku leeyahay to cultivate si ay u beertaan their motherland dhulkooda hooyo. their motherland dhulkooda hooyo and produce iyo in ay soo saartaan raw minerals macdanaha ceeriinka so as to become si aynu u noqono so as to si aynu way to become u ahaana ama aynu u noqono our country wadankeena si uu u ahaado the all in one ah oo dhan waliba ka dhana ama yani dhan walba ka dhameystiran. يعني all in one ku sii sharaxaya wuxuu ku leeyahay I mean waxaan ula jeedaa ana waxaan ka wadaa micnaha the richest country in the world si uu u noqdo wadankeena the richest ereyga richest waxa weeye ugu qanisan ama ugu taajirsan country wadanka ugu taajirsan in the world ee dunida.